wiilkani idin muuqda bal maxay idin la tahay oo sidaas oo dhan ula rafaadsan yahay uu riixaya maybe waxa isleedahay qashin buu riixaya because bahalka uu riixayo qashinka lagu yaqaan so maybe qashin buu riixaya haddii ay taasi maskaxdaada ku soo dhacday gebi ahaanba ka saar ninkaasi asaga waxa uu riixayay markii la ogaaday waxay noqotay arrin gebi ahaanba dalka UK yaab iyo fajac ku noqotay haddaba saaxiibayaal ha iga fogaanina muuqaalkeena maanta waxaan ku faahfaahin doonaa qisadaasi la yaabka badan ee uu sababta u noqday wiilkan aad moodo inuu u maleynayay in lagu jiro 60meeyadii soo dhawaada saaxiibayaal mar kale horta intayna soo dhawaan okay soo dhawaatay muuqaalka like ma saartay channelkana subscribe ma saartay sidoo kale Facebook page-ka follow ma soo dhaxday intaas aad aad midna sameyn isku yarday hadda horaha nugu socono muuqaalkeena maanta saaxiibayaal qisadeena maanta hadaba waxay ku gaaf wareegaysaa gabadhan oo lagu magacaabo Lindsay Birkbeck waa gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska siba waqtigaas ee dhacdadan qabsanaysay waxay ku nooleed Accrington da'deeduna waqtigaasi waxay ahayd 47 sano gabadhan hadaba dhaqan ahaan waxay caado u lahayd inay aad u sameeyso sportiga sameeysa marka ku leeyahay gym-ta inay tagto saas waa macquul inay sometimes sameey jirtay laakiin waxay aad u jeclayd inay socod ka badiso orodo si ay u noqoto qof fit ah oo dhisan oo caafimaadkeeda ilaashata sidoo kale waxa ka carri jirtay inay noqoto qof shuluq qof yani fahmi karaysa haddii aad biidsa iyo chicken iyo wixii KFC yaalo dhan aad jamsi si aad guriga fadhiisatid xaalad aanad mahadin baa ku qabsanaysa oops yana xadkii ka bixin aan ku soo noqdo qisada dabcan badanaa gabadhani markay sameynayso socodka iyo orodka iyo waxay tagi jirtay meelaha parkiyada buuraha meelaha dee bannaan ayay isaga caga fidsan jirtay haddaba taariikhdu markay ahayd 12 bishii August sanadii 2019 siba saacadu markay ahayd cabaara 4 galabnimo Lindsay doo maalintaasi ayada ah waxa uu dhaqaaqday dhanka iyo buuraha markaan ku leeyahay deegaanka lagu magacaabo Accrington waxa uu caan ku yahay dhul sidii buuro oo kale oo wada geeda iyo shimbiro iyo jawi kaale aragoo qurux badan ayuu deegaankaas caan ku yahay marka maalintaasi ayada ah Lindsay waxa uu dhaqaaqday dhanka iyo buuraha si ay jawi ugu soo qaato exercise ugu soo sameeyso jawi soo qaato deetana ay soo laabato laakiin ma ka soo laabatay hayga degdegan waynu isla arki doonaa haddaba saaxiibayaal barkan wabase beertan jawiga quruxda badan leh wada geedaha ay maalintaasi Lindsay ugu soo baxday inay jawi ku qaadato waxay caan ku tahay inay dadku yimaadaan sidoo kale ay waqti ku qaataan jawi ku qaataan qaarkood aydooda iyo bisadaha iyo waxay guryaha ku haystaan ay walking gareeyaan wow san Ingiriisiga Soomaaliga si riixay walking gareeyaan say xayawaanadaasi ay guryaha ugu hayaan u socodsiiyaan ayaga laftirkooduna ay ugu socdaan ay jawi ugu soo qaataan ayay u yimaadaan oo badanaa meeshaasi haddii aad tagtid waxaad arkaysaa dad socda qaarkood xayawaan sitaan qaarkood iska lugeynayaan qaarkood ordayaan qaar iska fafadhiyaan yes Lindsay hadaba maalintaasi iyo taariikhdan soo sheegay beertaas ay timid sidoo kale isla maalintaasi waxa ereyadaasi ku sugnayd gabadh sheeko la yaab leh ka sheekaysay oo lagu magacaabo Zoe hadaba Zoe waxay leedahay maalintaas ayada ah anigoo beertaas iska jooga jawi isaga qaadanaya iska lugeynaya kaligay ah sidoo kalena saacadaasi dad badan kuma aanay sugnayn aniga oo lugeynaya baa waxa dhacday inaan meel yar istaagay dabcan wadada dhexdeeda ma wadada ka baxday meel yar oo wadada dhankaasi ka xigta ayaa gabadhan ayada iska istaagtay haddaba waxay leedahay anigoo iska taagan baa waxaan arkay nin huud xidhan koofiyadna madaxa ugu soo rogay oo wadada socday ninkii asaga ahaa soo wadada u socday buu aniga soo fiiriyay deetana ninkii asaga ahaa intuu wadada ka soo baxay buu dhankayga soo abaaray yacni qaabka uu ii soo fiirinaya iyo siduu igu soo wajahnaa waxaan ka dareemayay ninkani inuu balaayo kala wado waxaan bilaabay baa tiri markaan arkay ninkani inuu dhankayga u soo socdo inaan aniguna qof socda iska dhigo oo sii dhaqaaqo welibana dhankii u socdo ma dhanka laan u leexdo laakiin ninkii asaga ahaa waa ila soo leexdo dhankii aan u leexday basna soo leexday tilaabooyinkii ayaan xoogay speed ku daro oo waan dhaqaaqay laakiin asna speedka waa kordhiyay markaasaan 100% yaqiinsaday ninkani inuu aniga igu soo socdo balaayna wila damacsan yahay markaasaan hareeraha fiiriyay balse aan u arko dad meelahaasi jooga nasiib wanaag waxaan arkay dhowr qof oo meel iga yara durugsan ku sugnaa dhankoodii ayaan u dhaqaaqay si aan ninkani balaayada isaga daba reebo haddaba ninkii asaga markuu arkay inaan dadkaasi ku soo socdo isla mar ahaantaana aan wax yarba u sii jiro dib buu isaga noqday laakiin kamaanu bixin beerti oo meel yar oo kale ayuu iska istaagay si uu qof kale ama fursad kale ugu sugto dabcan waxa la oran karaa cidda uu fursadda ku helayna waxay ahayd gabadha lagu magacaabo Lindsay ee uu muuqaalkeedu maanta saaran yahay Lindsay hadaba saaxiibayaal san hore soo sheegnay maalintaas ayada gurigeeda waxay ka soo baxday cabaara 4 galabnimo laakiin sidoo kale saacadu markay ahayd 6 galabnimo gurigeedii waxay yimid gabadheeda iyo saaxiibkeed gurigii ayay garaaceen laakiin waxay dareemeen gurigu inuu qufulan yahay sidoo kale furayaashii ay Lindsay qaadatay socdaalkeedii iyo jimicsigeedina ay u baxday Lindsay gabadheedu hadaba waxay isku dayday inay wacdo hooyadeed laakiin nasiib darro lambarka hooyadeed
khadka kuma jiro lama garanayo telefoonka miyaa gebigiisa la kala saaray meene ma waxay gaadhay meel bilan network ah haddaba saaxiibayaal gabadheeda yar ee lagu magacaabo Saara iyo saaxiibkeed markii ay guriga yimaadeen by the way gabadha yar ee lagu magacaabo Saara waxay la nooshahay saaxiibkeed guriga saaxiibkeed ay ku nooshahay furaha guriga hooyadeeda way haysatay laakiin waqtigaasi ayada waxay kaga soo timid guriga saaxiibkeed waxay bilowday haddaba inay hooyadeeda wacdo telefoonkii ma dhacayo waxay bilowday deetana inay fariimo u dirto fariimihina way ka soo jawaabi weyday ayadii saaxiibkeed wax yar bay ereyada joogeen ilaa 2 mise 3 saac bay sugeen laakiin way waayeen oo guriga kumaanay soo laaban maamadii sidoo kalena telefoon numberkeedii ma dhacayo intaasi kadib haddaba Saara waxay bilowday inay gurigii saaxiibkeed ku laabato si ay furihii u soo qaado furihii bay soo qaaday deetana aabaheed ayaa u tagtay si arrintan ula socotiiso koos arrintan waa arrin xasaasi ah habdhaqanka noocan hooyadeed ogomaanay baran telefoonkeeda haday wacdo hore ay ka qaban jirtay haday fariin u dirtana isla markaa fariinta ay ka soo jawaabi jirtay sidoo kale arrintan waa muhiim in ka dogeeyo aabaheed iyo hooyadeed waa ay kala tageen oo guri kale ayuu isaga noolaa hooyadeed iyo caruurteeduna guriga ay isaga noolaayeen sidoo kalena gabadhan yar saaxiibkeedii iskala noolayd inkastoo labadeeda waalid kala tageen haddana waxay ahaayeen laba qof oo aad isugu wacan aad isugu xidhan aad isaga warhaya yacni calafkeeni waa dhamaaday laakiin xiriirkeenu waa inuu wacnaadaa marka aabaheed iyo hooyadeed inkastoo kala tageen waxay ahaayeen laba qof oo iska warhaya maadaama ubad u dhaxeeyo way isku imin jireen xaafadda isku imin jireen way sarki jireen yacni sidii laba qof oo asxaab oo kala ay ahaayeen Saariya aabaheed ayaa haddaba gurigii ka soo ambabaxay cabaar saacadu markay ahayd 12 iyo 45 daqiiqo markii ay telefoonkii ay furi weyday sidoo kalena ay guriga ku soo laaban weyday labadooda oo wada socda ayaa gurigii yimid gabadhii Saara ahayd oo furaha guriga saaxiibkeed ka soo qaaday baa gurigii furtay gudaha ay u galeen wax mashaakil ah oo dhibaato kamaana dhicin gurigu waa okay wuu nidaamsan yahay laakiin ayadii ma joogto caruurta dhashana waqtigaasi waxay ku sugnaayeen guriga aabahood way yaabeen waxay isleedahay malaha meel kale ay u safartay way iska sugeen haddaba saaxiibayaal gabadhii Lensi ahayd markii ay guriga ku soo laaban weyday xataa subaxnimadii dambe August 23keedii cabaar saacadu markay ahayd 10kii subaxnimo gabadhii yareed ee Saara iyo aabaheed Ben ayaa waxay yiraahdeen khalaas sidaan caadi maaha wax weyn ayaa qaldan waxay bilaabeen inay booliiska la xiriiraan Saara iyo Ben ayaa booliiskii la hadlay u sharaxay waxay u sheegeen in maamadu siday shalay galabtii u baxday aan dib loo arag nooma aan sheegin inay meel tagayso telefoonkeedii ma dhacayo dhaqan noocan ah wali ogamanaan baran waxaan dareemaynaa inay wax weyn qaldan yihiin ee sida ugu dhaqsiyaha badan booliisku arrintaasi ha u soo fargeliyo oo hala baadi goobo Ben oo ahaa ninkeedii hore Lens ahna inay muddo badan Lens soo wada noolaayeen oo badna Ilaahay kala siiyay ayaa runtii waxa ka muuqatay inuu aad ugu warwarsanaa waxa uu ahaa shakhsigii ugu dadaalka badnaa markay noqoto dhanka baadi goobka Lensi حتى أنت أنا اللي وين كهر وحوها شخص قرب تاجن هدي فاملك وكالمة وباهضان قرب تاجن يعني وركو كوبن آدي يسوق عناين لنسي دالك يقاني وحا كنتو نامين إنا يهايد قبل دقن أو قبو قنير صعدة أنبوق بضنين وحانا يهايد الشخص جعل كالمين تددك دبعتيسن صدوك لو وحا يهايد معلمة وحبرتا ددك باهيا كاركا قبا انت سكت بدو صاحبي المركي اللي واي لنسي جان يعد ميلا دكتي وحل بالله إن بارتان لا سميو oo area-daasi oo dhan laga baadi goobo siiba meeshii lagu tuhmeeyay inay ku maqan tahay waqtiga ay dadku raadinayeen baaritaan ku sameeyeen CC kamarada ayaa la fiiriyay booliiskii waxay soo saareen muuqaallo ay toobeen kaamarooyinkii wadooyinka meelahaas ku xidhnaa ayadoo halkaasi ka muuqatay waqtigeedu u dambeeyay ee Lensi sii galeysay beertaas haddaba dadweynihii waqtigaasi aydan raadinayay ayaa waxa la tusay muuqaaladii si ay u arkaan dharka ay waqtigii u dambeeyay la waay doono ahidnayd at least balse ay u helaan xataa dharka ay xidhan tahay dadweynihii ayaa si mutadawacnimo isu xilqaamay sidoo kale dawladii helicoptera lagu raadiyay xataa diyaarado drones lagu raadiyay meeshana lagu tuhumayay inay ku maqan tahay waa meel aad u ballaaran oo wadageeda ah ta kaga sii daran ayaa waxay tahay Lensi aad iyo meelaha soo dhex socon jirto way kala baratay meesha ay doontay lagu tagi jirtay laakiin lama hayo ayba la soo kaxaystay shacabka is soo xilqaamay meel kasta buri dhexda waa laga raadiyay laakiin nasiib darro Lensi la waa isbuuc ayaa lagu jiroon baadi goobkeeda isbuuc kadib markii la waayay ee laga quustay ee la yiri khalaas buurahaasi horteeda kuma jirto hataa dhagaxaanta dhulka yaal baa la rogrogayay bacdi meel taala waa la rogayay meel kasta waa laga baadi goobay la waa isbuuc kadib Ben odaygeedii hore Lensi ayaa warbaahinta la hadlay muujiyayna sidoo uga xun yahay waayitaanka xaaskiisii hore waxaanu warbaahinta u sheegay in aan lahayn jaan iyo cirmeela dhigtay ilaa waqti xaadirkaas haddaba saaxiibayaal waayitaankeedii Lensi markii ka soo wareegtay ilaa meelaha 12 cisho ayaa maalin maalmaha ka mid ah waqtiyadii baaritaankeeda lagu jiray booliisku waxay heleen
caagan weyn oo ah caaga qashinka. caagan ma xasuusataan muuqaalka bilowgiisa waa caagii uu ninkii asaga riixayay. layskuma sii mashquulin caagaas. haddaba saaxiibayaal gabadhii Lindsay ahayd waayitaankeedii 12 maalmood kadib maalin maalmaha ka mid ah nin wadada iska mariyay oo watay aygiisii yani aygiisa ayuu xadhiga saaw hayay ayguna wuu hor socday ayaga iyo aygiisa oo waqtigaasi mariyay meel xabaala ah oo ka soo yaro sokeeya meeshii park ama base beeraha ahayd buuraha ahayd lagu waayay Lindsay ayaa wuxuu bilaabay aygiisii inuu u dhaqaaqo oo uu sii galo dhanka ay xabaalihii xaqii xabaalaha ayuu aygu isku riixay ninkii waxa isku dayay inuu aygi soo celiyo oo wadada ku rido laakiin aygi waa diiday waxay ka qabsatay oo kaga dhigtoon inuu xabaalahaas si dhaxgalo deetana ninkii ayga lahaa ayaa waxa uu dareemay inuu aygiisu wax urinayo waxa uu bilaabay deetana ninkii bal inuu aygaasi daba raaco oo uu ogolaado meeshan uu ku socdo aygiisii buu daba galay aygiisu u socday baa waxa uu ku leexday meel yar oo sidii qashin mise ciid oo kala buu aygi bilaabay inuu urursado sidii inuu wax meeshan ku arkay oo kale ninkii ayaa bilaabay inuu meeshii ku soo dhawaado balse uu u hubiyo waxaan uu aygiisu arkay laakiin markuu soo dhawaaday waxa uu dareemay qarmuun zaa'ida in yar kadib ninkii asaga waxa uu arkay wax sidii lug oo kala ah oo soo muuqata saasoo lugaha ku yiri misana waaba lug bini'aadam waaba qof aasan oo ligiisi soo muuqdaan bismillah waxayte qof caadi oo dhintayba laakiin qof markuu dhinto waxa sidan looma aase sidan umuru caadi kuma aha markiiba ninkii waxa bilaabay inuu booliiskii la hadlo booliiska ayaa meesha soo gaaray qofkii bay soo saareen oo de zaid u soo kamkamaya markii fiiriyeen oo baaritaan ku sameeyeen qofkani waaba gabadhii la waayay ee Lindsay halkaas ayaa isku bedeshay qadiyadii from qadiyad looga shakisan yahay qof la waayay amba se la afduubtay to qof la dilay jirkeedii ayaa haddaba baaritaan lagu sameeyay balse looga helo DNA qof kale inuu jirkeeda taataabtay inuu kufsi u geystay laakiin ku dhawaad 12 maalmood ayay meeshaasi taalay jirkeedii waa isbedelay in kufsi loo geystay in kale waxba laga ma garan karayo laakiin cidiyeedii markii la fiiriyay baa xoogay waxa la dareemay inay caadi yihiin cidiyeedii ayaa baaritaan lagu sameeyay balse looga helo DNA qof kale sidoo kale jirkeedii markii loo fiirsaday lugaheeda waxa la arkay in la isku dayay in lugaheeda la gooyo yani miishaarin lagu jeexo laakiin miishaartii ayaa qofkii asaga ahayd u goyn weyday lugta sababtoo ah lugaha bini'aadamku way adag yihiin wax jilicsan ma qofkan waxa isku dayay inuu gogooyo oo miishaar yar saa ku dhaado laakiin miishaartii waa u goyn weyday eriyadii meedka laga soo helay markii baaritaan lagu sameeyay waxaba laga helay miishaartii la isku dayay in lugta laga gooyo gabadha iyo sidoo kale gloves sidoo kale waxa isla xabaalihii laga helay qaar ka mid ah dharkii ee gabadhan xidhnayd sidoo kalena waxa laga helay kabaheedii oo si yaro la yaab loo gogooyay anyway saaxiibayaal dambi baarayaashii waxa isku dayeen balinay CC kaameradii ay dib ugu noqdaan oo baaritaan ku sameeyaan si xeel dheer ugu fiirsadaan deetana dambi baarayaashii marka u fiirsadeen muuqaaladeedii ayadoo sii socota wax yar kadib waxay arkeen dhaqdhaqaaqyo runtii aanay u bogin oo aad uga yaabiyay waxay arkeen ruuxan oo isna parkii sii galaya meeshii gabadhan lagu waayay sii galaya haba sii galaa dhaqankiisa iyo qaabka uu socday ay dambi baarayaashii ka yaabeen sidoo kalena qofkii ayaa ka soo baxay markii uu soo baxay waxa uu wax yar kadib haddana la noqday asagoo oo riixaya aagan qashinka caagii qashinka ayuu haddana beertii kala soo baxay ayada oo isla mar ahaantaana la dareemayo inuu wax culus ku riixayay markii kaamerooyinkii lala raacay caaga waxa uu la galay xabaalihii gabadha meedkeeda laga helay ayuu la galay war caagani kii aan helay maanu ahayn caagii baa baaritaan lagu sameeyay misana DNA-geediiba laga helay yacni qofka maalinta cad caaga lagu riixayay Lindsay ayaa ahayd sida kaamarada aad ka arkaysaan maalin cad xilli cadceedii soo jeedo ayuu caaga riixayay dadkuna waa iska garmamarayeen haba yaraatee hal qofna kama shakin ninkan maalinta cad ayuu hawshiisa iska watay ayagoo kaamarooyinkii wadada ay saa wada hayaan hadda saa wada arkayaan ayuu iska watay wajigiisa si clear ayaa loo arkayay identitykiisa ninkii waa la helay wiilkan waxa lagu magacaabaa Rocky da ahaan waqtigaasi waxa uu jiray 16 sano waxauna ku noolaa isla deegaanka ay ku noolayd Lindsay inkastoo aanay aqoon kala dheeraayeen haddana isku deegaan ay ku noolaayeen haddaba dambaashii wiilkii ay shaashada ka soo muujiyeen yiraahdeen wiilkaasi cidii garanaysa hana la soo socodsiiso wiilkaasi dambu weyn ayuu faraha la galay cidii garanaysa ha soo sheegto laakiin meel dheerba wiilkii laga raadin waalidiintiisa oo socda oo wiilkii gacanta haya baa keenay oo yiri wiilkani waa wiilkanaga waa Rocky waa wiil gacanta la hayo oo 16 jir oo la wado dambiilo hooyadii aabihii uu iska soo raacay oo iskeenay xagee lagu harkay waalidiintiisa hadaba waxay dhaadeen taliya u fiirso arrintan hubso wiilkani waa wiil miskiin ah wiil arrintaasi ku dhaqaaqi kara maaha wiilkan hadaba backgroundkiisii markii baaritaan lagu sameeyay oo la fiiriyay shakhsi ahaan marka la qiyaasay ma aha shakhsi ficil noocan ay ka suurtowdo
waxa ahaa wiil afgaaban oon hadal badnayn guriga markuu joogana digaagadaha gurigooda iyo waxyaabahaasi uu ka shaqeeya sidoo kalena inta badan guri jooga oo guriga ka soo bixin oo kombiyuutarkiisa iyo waxyaabahaasi uu ku hawlan sidoo kale waxa la ogaaday Rocky inuu qabo xanuuno nafsiya xanuunadaasi nafsiga oo ninkani lahaa waxa kamid ah kalinimada dadka maanu dhaxkeli jirin IQ-giisu sidoo kale waa hooseeyay nin caqli badan maanu ahayn soo ku caqli badnaanaya nin maalinta cadmeed riixaya عقل حقوقها sidoo kale gabadhan maanu garanayn oo ma jirto in ambabase cadaawad kala dhaxaysay hadaba ninkan hadii uu nooca yahay hadda ka hor sidoo kale waalidiintiisu wiilkan waxa uu geeyeen dhaqaatiir dhinaca nafsiga waxna la isku dayay in laga daaweeyo cabsida iyo xishoodka iyo baqdinta uu ka qabo dhaxgalka bulshada waxyaabo noocaas ah ayaa ninkan la isku dayay laga daaweeyo way hadee saatahay kaamirooyinkii marka loo fiirsaday ninkan soo u dhaqmiyo soo u socdo sidii qof caadi oo normal ah dhac qof soo dilay midkiisii uu soo riixay waa soo aasay wiilkiiba la warheed gabadhan maxay ka beesay maxaa ku tushay anu ma dilin ya waranu ma dilin ka shaqeeymaysa kaamirooyinku aday ku hayaane waxa ku dishay noo sheeg anu ma dilin niba yimid oo igu yiri lacag baan ku siinayaa meedkaasi soo qari oo aad ma dil anu ma dilin nin kala dilay ninkaasi waay ma garanayo oo ma garanaysan ninka imsu ku sii ana lacagta wuxuu igu yiri meesha park gabadha ay ku sugnayd baan ku dhigaynaa meeshii markaan tagayna waan ka waayay lacagta wax lacag iimaan dhigin ninkaasi wax lacag iimaan dhigin oo isray kaamirooyinkiiba lagu noqday bal in la fiiriyo qof kale oo looga shakin karo inuu meelaha socday laakiin nakata ma jiro qof kale kaamirooyinka si kasta waa loo fiiriyay waa loo baaray ninka kaliya ta ugu dhow ugu macquulsan waa asaga jilbihiisa xataa qoyina qaabka uu socdo qaabka uu dhaqmayay serious baa nin wax soo dilay wax qarinaya inuu yahay way ka muuqatay ma aqaan ninkan qolyo kale miyaa dhax galay ghost miyaa dhax gashay oo ka adeegatay mise asaga un baa siri bal qof dil oo bal tijaabis si uu dilku yahay dilaayada noqotay dareenka ay leedahay bal soo dareen wax dil oo lama garanayo sababta ku kaliftay sidaasi ogeed ugu dambeyn maxkamaddu ninkan waxay ku xukuntay xabsi daa'im laakiin waalidiintiisu waxay ku adkaysteen in aanu wiilkani dilin gabadhaas macquulna aanay ahayn ma Rocky ba qof dhan dil taa idinka qorimayno wiilkana waxa wiil miskiin ah degan dadka aan dhibaatayn naftiisu la dhibaataysnaa wiilka wuxuu ahaa social anxiety qaba ee miskiinka macquul ma baaha wiilkaygu waxa geystay by the way meedka markii la baaray meelaha dambe xagaas ayaa waxa laga helay yaani in jug ka gaadho kale in lagu dhuftay yaani sidii gabadhan ayadoo sii jeeda oo waris ku hayn in wax weyn halka laga dhufto kale taasi darteedna aw dhacday oo dhimatay si kasta hada saaxiibayaal qadiyadan halkaas ayaan ku soo afmeerinaa bal aragtidiinana xagga hoose commentiga nagula wadaaga ma idin la tahay Rocky inuu ahaa dilaaga mise Rocky waa la soo adeegsaday mise Rocky laftirkiisa lagu dhax jiray sayid la tahay bal aragtidiina xagga hoose commentiga nagula wadaaga videoga like saar sidoo kale channelka dadweynaha ku soo biro subscribe saar Facebook page kana follow 5000 ayaan durba ku sii soconaa Facebook page ka tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxaan kaga tagayaa amaana Allah maxaad isoo kaya hadhay waa inuu kala dhamaanay nalalkaygan dansanaya